وهذا كرتا waddankaygan oo shaqeeyo gudoomiye shuuta iyo gudoomiye liibaan iyo maya ma socon anagu dadkaan u soconna maaha dadkaan gaalada leenahay dadkaas maaha eedeysanaha si public ah oo social media wuxuu ula yimid inuu yiraahdo waxaan taageersanahay kooxda al-shabaab dagaalka ay kula jirto dawladda waliba qaraxyada ay sameynaysa xataa way ku taageersanahay sababtoo ah waa dagaal maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa waxa ay u fariisatay garmaqal uu eedeysana ka yahay Sufyaan Sheekh Axmed Taakaye kaasi oo loo heeso inuu taageeray in al-shabaab weeraradii qaraxyada ay ka fuliyaan gudaha dalka ay ku saxan yihiin Sufyaan Sheekh Axmed Taakaye oo 58 sano jir ah kuna soo barbaaray degmada Jilib ayaa maxkamadda laga hor sheegay in dawladda iyo waliba maxkamaddii darajada koowaad ee kal hore xukunka ku riday uu ka aaminsan yahay in ay gaal ay ahaayeen sida uu sheegay xeerlaaliye ku-xigeenka maxkamadda si public ah oo social media wuxuu ula yimid inuu yiraahdo waxaan taageersanahay kooxda al-shabaab dagaalka ay kula jirto dawladda waliba qaraxyada ay sameynaysa xataa way ku taageersanahay sababtoo ah waa dagaal ma aha shacab Soomaaliyeed ee la xasuuqaayo ayadoo miisaal loogu soo qaatay eedeysanaha qaraxi ka dhacay Soobe oo ku dhawaad 1000 qof ay ku dhimatay mudan gudoomiye maxkamadda darajada koowaad waxaan horgeynay cadeymo iyo marqaatiyaal ku filan eedeysanayaashan fildambiyeedka ku soo eedeynay waliba muuqaalo cadcad oo Taakaye uusan inkireynin oo uu qirsan yahay ayaan maxkamadda darajada koowaad horkeenay waxay maxkamadda ku xukuntay 2 sano oo ilkuhayn booliis ah eedeysanaha markii la xukumay 28 bishii 3 2024 oo lagu xukumay 2 sano oo ilkuhayn booliis ah awaamiirtii maxkamadda ay siisay iyo xukunkii maxkamadda darajada koowaad ay siisay ma uusan fulin halkii ayuu ka bilaabay social media fadhiistay wariyaal badan oo isugu yeeray mar kale oo wuxuu yiri dawladda iyo shacabkeedaba waxaan ka aaminsanahay inay gaale yihiin maxkamadda ay xukuntay xataa maxkamad gaale ahayd uu yiri eedeysana Sufyaan ayay maxkamadda darajada koowaad ku xukuntay 2 sano oo ilkuhayna isagoona dib u soo rogaal celiyay inuu ka hadlo arimihii hore xeerlaalinta ku soo eedeysay gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida General Liibaan Cali Yarow iyo eedeysana Sufyaan Sheekh Axmed Taakaye ayaa dhexmartay doodani waxaad u xil saaran tahay qof kasto Soomaaliya inuu ku cadeeyo in muslim yahay inuu asoo ku sheegto ma saaran tahay ma mudan gudoomiye ma xil saaran waxaan isticmaalnay mudan gudoomiye waxaan rabaa inaan meesha taaqliid ku daro maanta caalamka Soomaaliya marka la fiirinayo United Nations Charters iyo sida qoran nooma qorna hadda in Soomaaliya boqolkiiba boqol ay muslim tahay macaalasaf waan jeclaan lahaa in asaas noo qoranta laakiin nooma qoran aniga Sufyaan Sheekh Axmed hadaan ahay shabaab ma taageersani weligeed xiriir lama yeelan ereyga meesha ugu dhow uu soo helay xiraalintu waxa weeyaan waa dagaal ku jiraan waa sax dagaal ku jiraan khidad dagaal waay laakiin dagaalka ma taageersanaha maya dagaalka ma ku qanacsanaha maya ma ka xunahay ha boqol mar aan sheegnay mana uu soo qaadan hal video kamida inta aan leenahay waa ka xunahay ma taageersanin mana rabna inay dhintaan xafiiska xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa garsoorka ka dalbaday in Sufyaan aan lagu dhex fasixi karin bulshada iyagoo codsaday in xabsi daa'im lagu xukumo maxkamadda sharafta waxaan ka codsanayaa waliba si xushmad loogu codsanayaa in eedeysanahan ay ku xukunto ciqaabta uu mudan yahay ee ku xusan qodobada 6aad 12aad 13aad iyo 19aad ee xeerka la dagaalanka argagixisada ciqaabaha ku qoran 4 qodob ee aan ku soo eedeynay marka la isku daro eedeysanahan ugu dambeyn lagu xukumo markay maxkamadda u naxariisto xabsi daa'im lagu xukumo ummadda laga haayo inta cimrigiisa ka dhiman bacdama uusan wanaag banaankan la iimaanayay gaalaysiin iyo ummadda Soomaaliyeed inuu iska hor keeno nin walba gaal asaga uu ku tilmaamo uusan banaanka inuu intaas leeyli yimaado ma ahe wax nabad ah uu waddan ku soo kordhin waxa codsan in ummadda laga qabto xabsi daa'im ay maxkamadda ku xukunto maxkamadda sharafta loo maasanta qareenku u doodaya eedeysana Sufyaan Taakaye ayaa garsoorka ka dalbaday in xukunkii hore la baabiyo xuriyadiisana la siiyo muwakkilkiisa waxaan codsanayaa sharafta la maxkamadda ka codsanayaa inay ku weydo si waafaqsan 122 eed xalaalinta ku soo eedis maxkamaddu inay ku weydo xorriyadiisana maxkamaddu u celiso maxkamaddu waa maasanta Sufyaan Sheekh Axmed Taakaye oo fursad loo siiyay inuu ka hor hadlo garsoorka maxkamadda ayaa dalbaday in xorriyadiisa la siiyo noloshayda waxaan ku soo bixiyay waxbarasho
وهذا كرتا waddankaygana u shaqeeyo ma ihi qof waddankiisa dhib ku ah waxaan ahay qofkii badbaadi lahaa waxaanan diyaar u ahay aan ugu jiraa shaqadan ku jiro inaan waddankayga qaybta anigu aan ku lehan ka badbaadiyo mudane guddoomiye anigu waxaan ku soo koro waddankan isagoo barwaaqa isagoo nabada isagoo marka la rabo in la dagaalamo kursi inta la qaato la caytamo dagaalkaynu intaasuu yahay waxaan rabaa waddankii aan aqaan mudane guddoomiye waxaan rabaa maxkamadda sharafta maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida inay xorriyaddayda ay siiso su-aasha idinka jawaabayaan lana i aqoonsado ama lagu ixtiraamo waktiga iyo cilmiga aan xambaarsanahay una xambaarsanahay waddankayga iyo dadkayga waa maasanta gabagabadii jenaraal liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida oo soo gabagabeeyey garmaqalkan uu eedeysanaha ka ahaa sufyaan sheekh axmed taakaye ayaa eedeysanay sufyaan taakaye lagu xukumay 5 sano xabsi ciidan ah sidii uu xukunkaasi ku dhawaaqayo jenaraal liibaan cali yarow guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida cabdiqadar axmed xuseen wuxuu ii ahaay arday oo ii ahaaye sanadkan oo ardaydii imtixaanka dowladda ii gashay oo ii ahaa jirdo fiican meel fiican iskuulka ii fariistay gacan ka xaq daranaa wiilkayga dishay wiilka xabadee waxay ugu dhufteen wadnaha naf dhulka lama dhicin alla hadda abtanaaw meydkiisa gurigoo ii dhex yaalaa walaalahey Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa wiilkayga inuu cadaalad dowladda madaxweynaha inuu wiilkayga wasaaraha inuu cadaalad oo wiilkayga ii helo cadaalad ilaaha laga helaa istaago dhaw istaago dabado haraanta u dhuftay markoo jilba jabsadana xabado aanu arkaayo xabado ku dhuftay markoo jilba jabsada xabado bush ku dhuftay madaxweynaha markaa oo saas dhaamay qoriyo leefka u cabdasnaade caado oo ku dhuftay tareese eeday kula laabtay tan ay ku soo baxday markaa saas oo ku dhintay maleena horta cadaalad horta inaan heleeno laakiin adee cadaaladeen horta inaan hal siina aniga fahmi weena isna arday oo iska ahay oo gurigan iga dambeeya waxaa taala tacsida Allah u naxariistay Cabdiqadar Axmed Xuseen oo ahaa wiil dhalinyaro ah oo 19 jir ah oo xalay gacanka xaq daran ay ku dishay degmada Kaxda ee gobolka Banaadir wiilkan dhalinyarada ah ee la dilay Allah u naxariistay waxa adeer u ah Axmed Dawlo oo horay loo gubay qoyskiisa ehelkiisa iyo asxaabtiisa ayaa halkan ku sugan waqtiyada soo aadanna waxa lagu wadaa in la aaso dilkan ayaa yimid sida la sheegay kadib markii wiil dhalinyaro ah oo ciyaal xaafadeed ahaa ay isdagaaleen kadibna ay ku soo baxeen askar ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya oo la sheegay in ay soo wateen dhinaca kale askari ka tirsan ciidamadii goobta soo gaaray ayaa la sheegay in ay dileen wiilkan dhalinyarada ah Allah u naxariistay oo lagu magacaabayay Cabdiqadar Axmed Xuseen Cabdinaasir Axmed Xuseen oo walaalo la ah wiilka la dilay iyo sidoo kale Ali Cabdullaahi Xuseen oo ay ilmo adeer yihiin ayaa iyagu waxa ay ka hadlayaan dilka loo geystay walaalkood iyaga oo ka sheekeeyay sida ay wax u dhaceen wararta geerida walaalkay ku imaatay walaalkay laakiin xal horta wallahi wax la muleysan karin ma wallahi gacanka xaq darna disho horta saani dhila horta si wax u dhaceen waxaan aragtay adee walaalkayga ani iyo waxa ahaynay iyo afar qof ahaynay markaa askara marka iyo cunuga dagaalka isku galnay iyo askar wati marka askarka wuxuu soo furmuuqo walaalkii cunuga askar ku soo furmuuqa amal cunuga waa kaasa amal waa marka ani yar kale marka meesha ka ordina marka dhinac kale oo baxna marka yar kale walaalkii oo sidoo ku furmuuqo walaalkii oo qofta jilib jabsoo dhaa marka sidoo ku jilib jabsada marka markoo jilib jabsada madaxoosan marka oo saas dhaamay qoriyo leefka u cabdasnaade caado oo ku dhuftay tareese eeday kula laabtay tan ay ku soo baxday markaa saas oo ku dhintay naf dhul ma la dhacay si waa dhaawacan la soo wallahi naf dhul ma u dhicin wallahi horta taliyaha degmada oo xooga ciidanka iyo taliyaha degmada Banaadir gobolka Banaadir waxa ka codsalaa horta walaalkii cadaalad horta in loo helo horta ka codsalaa horta ani ahaantina ka soo jeedno baashin tire horta maleena horta cadaalad horta inaan heleeno laakiin adee cadaaladeen horta inaan hal siina aniga fahmi weena isna arday oo iska ahay oo sanadkan imtixaanka dawladda qalin jabisay
oo iska lahaay oo hami iska lahaay dalaal iska lahaay garabkii midigo ay maanta wuxuu gabeeyay 2 sano oo gabeeyay bas waa cunug 19 jiro ah wallahi wiilka dhintay in adeerkiisa ahay wiilka dhintana waxa la Cabdiqadar Axmed Xuseen marka xalay dagaal cid dirisa is dagaalnay marka dagaalka wiil yar oo ka bilowday wiil yar marka ka bilowday wiilkan hadda dhintay walaalkiisa wiil weyn soo dilay markaas wuxuu dhahay walaalkii wiil facaaga ay soo dilay marka waa baxnay wiilkii inuu marka baxnay wiilkii u tagnay hasi wiilkan oo hadda la dilay is dagaalan marka is dagaalan waa soo baxnay anaga guriga aabisa aan soo waday guriga nagu soo xareey guriga marka nagu soo xareey ciyaala anagu soo duulan guriga nagu tuuriyeen guriga dhulka dhigan dhagax nagu wadeen gabadh anaga soo baxnay waa tuuriyeen askara imaadeen askarta si soo socdeen waxa u maleynaa askarta inay xal u imaadeen si soo socdeen dhankeen anaga na soo dabraaceen markaan soo dabraaceen ani iyo walaalkiisa la socono istaagana dhahan waa istaagnay amarkooda qaadanay wiilka xabada u dhuftay istaago dhaw istaag dabado haraanta u dhuftay markuu jilba jabsadana xabada aanu arkaayo xabada u dhuftay markuu jilba jabsada xabada bush u dhuftay askariga oo dilka geesay ma qoonsan kartaa askarigaas ma mugdo habeen boolis militaar oo boolis wili cimaamada watay qoortan waxa u jirta tusbaxan oo calan Soomaaliya camal oo watay oo xogaan oo gaabnaa wiilka markay xabad ku dhacday horan waa ka dhintay mise waa may ano ila hadlay ay tageen oo idahay ay tageen ana ma ku qaadi karaa dhaay moota ku doona waa ka tagay mootada soo qabtay mootada la saaray أنا حبذا أنا ميدا حبذ يقولي لا أسكر أنا قبته. من أسكر يقولوا حبذ إنك أقول إفتي حقوق هذا. وانا صوتك وانا صوتك. يجي أشري أسكر في ساعتين. هذه شن عمل إيه هاي هذه. مركي حبذ إنك أنا أقول إفتي أركي وانا صوتك وهذا المندهم. صباح. مركي محاد البني سما دام قوس كأكمل. تليها جود يتليها بوليسكا يتليها قولك بنادر معلم هذه وحكى عصنا. ninkaas dhar boolis oo watay aan arkayo walaalkayga xabad ku dhuftay anigana waa la dirdilay xabada la igu dilay waxaan ka codsanahay cadaalad in la ii raadiyo ka codsanahay meesha wax ka dhacan xagee degmada Kaxda Saaro Maxamuud Xidig waa hooyada dhashay Cabdiqadar Axmed Xuseen waxa ay hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya ka dalbanaysaa inay cadaalad u hesho wiilkeeda oo ay dishay gacan ka xaq daran wiilkayga Cabdiqadar Axmed Xuseen wuxuu ii ahay arday oo ii ahay sanadkan oo ardayda imtixaanka dawladda ii gashay oo ii ahay jirda fiican meel fiican iskuulka ii fariistay gacan ka xaq daranaa wiilkayga dishay waxa lagu dilay Qaxda laba ciidan laba qolo oo isdagaashay oo dagaalka ka bilowday wiilkayga ciyaal oo asiga oo aabiis dhalo guriga ka soo bixinayay markay guriga ka soo bixi wiilka luuqoo fariistay luuq markuu fariistay askari oo dable oo Qaxda ka tirsan oo ciidan ah meesha uu imaaday wiilka xabada wuxuu ugu dhufteen wadnaha naf dhulka lama dhicin alla hadda abtanaa meedkiisa guriga ii dhaxyaala walaalay Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa wiilkayga inuu cadaalad dawladda madaxweynaha inuu wiilkayga wasaaraha inuu cadaalad oo wiilkayga ii helo cadaalad ilaaha laga helaa gacan ka xaq daranaa dishe cunugeyga cid dishe waa kaas hadda dhinaco inuu iyo marmaraa laga yaabaa ilaahay xaqiismiya san ilaahay xaqiismiya islaamnimo ma jirto sharci ma jiro diin islaam ma jirto cunug arday in la dilo oo meeshiis loogu imaado la dilo sharci islaamka ma qabtaa wiilkayga cadaalada u rabaa cadaalad ay siiyo wiilkayga askariga dil ma la yaqaana wallahi askariga dil dadka ma ka aqaana in laakiin askari oo Cabdibilo oo ciidan cid ay kaystaan Cabdibilo oo askari oo inuu soo degto xabad ku dhuftaa ogaa aniga oo cid kaysato waqti Qaxda lagu dilay xilligaas maxaa socod dagaal waxa la dhacay dagaal oo adiga daraado dagaal ka bilowday laba koox ay ahaayeen asiga marka guriga ay lagu soo weerar guriga waa laga dudumiyay marka laga dudumiyay ilmo yariis oo guriga ku jireen oo aabiis inuu soo badbaadiyo rabay ilmihii asigoo badbaadanayaaba maluuqi oo asiga ilmihii ka bixiyo jiingada oo jeexyaaba loogu imaaday askari dable oo Cabdibilo wato aaba meesha ku dilay cadaalad dawladda waxa ka dalbana madaxweynaha wasaaraha in cadaalad aan helo ilaahay cadaalad laga helaa cunugeyga qofkii dilana inuu ilaahay cadaaladii ii marsiyo waa de cadaalad ay jirto wadankan wallahi 19 sano jiro ii yahay ardayda hadda qalan jibisay oo ii yahay arday oo ii yahay hadda dhawaa dharkiisa gaday الحمد لله على كل حال إلى ما دله الحمد لله